munaasibad ballaadhan oo ay ku qalin jabinayeen 197 arday oo dhamaystay barashada maadooyinka kala duwan sida kombiyuutarka xisaabta iyo waliba ingiriisiga isla markaana ka qalin jabiyay dugsiga barashada culuumta kala duwan ee Action College ee magaalada Berbera. munaasibadan oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Saaxil, guddoonka waxbarashada gobolka Saaxil, xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka degmada Berbera, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxil, waalidiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. waxaana saaka munaasibadani lagu qabtay hoolka jaamacadda culuumta badda ee magaalada Berbera. waxaana ugu horeyntii munaasibadani daahfuray maamulaha dugsigaasi maxamed khadar xasan isagoo ka waramay sooyaalkii taariikheed ee dugsiga, hambalyana u diray 179 arday ee maanta qalin jabinaysa. tirada maanta ardayda ka qalin jabinaysa numberkoodu waxa weeyaan 179 arday oo isku guda jira marka qaybaha kala duwan oo soo sheegay. tan iyo markii laga soo bilaabo xilligii suuqa la aasaasay oo ku beegnay 9kii bishii Abriil 2009 waxa ka qalin jabiyay dufcadii 7aad saa ku arkaysaan. iskuulku 6 sano shaqaynaya 7 ladna way ka qalin jabiyeen. taasoo waxa maanta iska leh macallimiinta iyo marka maamulka aad iyo aad ugu soo daalay si gobolka waxbarashada sare u qaylayeen. waxaa iyaguna munaasibadaasi ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasibadaasi, iyagoo dhammaantood u hambaliyay ardaydan qalin jabinaysay isla markaana u soo jeediyay inay aqoontan ay barteen ay wax ugu taraan bulshadooda. gabagabadii munaasibadana waxaa shahaadooyinkii la guddoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay Machadka Action College ee magaalada Berbera, tiradooduna ay dhammayd 179 arday. Khalid Xasan Nuur, Bulsha TV, Berbera.